guddiga taakulaynta abaaraha inta gobolada Awdal iyo Salal ayaa deegaanka Dila tulooyinka hoos yimaada waxay ka qaybiyeen deeq mucaawino oo ay ugu tala galeen dadka abaaruhu ay soo barakiciyeen ee bariga Soomaaliland ka soo qaxay. deeqdan ayaa waxa isugu jirtay maanta deegaanadaasi ay ka qaybinayeen daraanada lagu waraabiyo xoolaha, bacaha biyaha lagu shubto, cuntooyin, bustayaal iyo dhar tiro badan, iyadoo halkaasina ka hadleen xubno ka tirsan guddiga taakulaynta abaaraha gobolada Awdal iyo Salal oo dadkaasi deeqda ay soo gaarsiiyeen u sheegay inay intani tahay in hordhac oo dadkan ay ku badbaadinayaan wixii kale karaankooda ay dadkaasi la garab taagan yihiin waxayna yiraahdeen maanta halkan aan joogno haddii aan nahay guddidii taakulaynta abaaraha saddex qodob baan halkan maanta kaga hadlaynaa. waxa kolka u horeysa waxa weeyi ilaahay baan cabasho u jeedinaynaa. ilaaha weyne qaadir raxmaanka ilaahigeew rabbigayow ilaahu dambigayga ilaah baan nagu qaadin, ilaahu camalkayga ilaah baan nagu qaadin, ilaahu dambigayga ilaah baan nagu qaadin, ilaahu naxariistaadii baan ku weydiisanay, ilaahu adiga cabashadaasaan rabbigayow ilaahu iyaan ka dalbaynaa. marka labaadna waxa weeye qodobka kale labaadna waxa weeye maanta degmada Dila dadka maanta hayaanka ee soo gaaray waxaan uga mahad celinaynaa siday ummadda u soo dhaweeyeen, sida ay u taakulaynayaan, sida baad iyo biyo adduunyaha haday tahay iyo dad haddii ay tahayba sida ay u dajiyeen iyo sida u taakulaynayeen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. waa taakulaynta xagga ilaahayna naxariista laga helayo weeyi jasaa Allah khayr baan leenahay iyo waan ducaynaynaa. qodobka kale labaadna waxaan leenahay ilaahay baahida ilaahay baa lagu baahi baxaa. waxaan leenahay dadka degaan wadanka iyo gobolka Awdal dadka maanta waa tii shalay tooliya inagayna haysay weeyi dadkaasi waxa weeye waxna ilaahay wax ma waayin, laakiin se ilaahay wuxuu leeyahay bal ummaddu sida iskugu naxdo ayuu ilaahay inagu eegaya. waxaan leenahay sida wanaagsan ee xagga ilaahayna u naxariista ee xagga bilaadanimada waxaan leenahay dadkeena loo naxariisto. waxaan leenahay dadkana kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba dadkaasi gurmad bay u baahan yihiin, biyo u baahan yihiin, wax cumaan bay u baahan yihiin. waxaan leenahay waxay huwadaan. waxaan leenahay dadkaasi ha loo sara kaco, ha loo kaco haddii aan nahay guddidii taakulaynta. waxaan joognaa duud weyne soo jeedkiisa Dila u soo jeeda. halkaas waxaan ku qaybinaynaa dadkii soo guuray mataqaana bariga ka soo guuray xoolihii iyo iyagiiba wada socda oo mataqaana halkan ku soo mataqaana baabuurtu keeneen ayaa waxaan u qaybinaynaa waxyaalo yar yar oo mataqaana sida mataqaana waxa halka ka muuqda ee arkaysaan mariyo iyo bustayaal iyo timir iyo caano yar oo waxyaalahaynkaas iyo baalaha mataqaana biyaha dararka xoolaha lagu waraabiyo oo si biyaha mataqaana xoolaha lagu waraabiyo ayaan u qaybinaynaa insha Allah ta'ala kullayba waxa weeyaan kolba wixii la helo un baa la soo gaarsiinayaa. dadkuna way socdaan oo saaka Dila markaan aroortii baan imanno baabuurtu way sidaa waxay noo soo dhaafeen xagga tulli oo ilaa meelahaas xagga Korea colaad bay suuq madaxoogi baan filayaa. laakiin hadda imika markaad aragto imika halkaan joogno dhinac walba way naga xigaan, geesayna naga xigin ma jirto. xooloogiina beerihii iyo xoogiiba way joogaan, dadkoogiina waa idinka arkaya. insha Allah ta'ala waxaan mataqaana rajaynaynaa in dadkaasi mataqaana wixii loo qaban karo loo qabto. aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa dadka deegaanka oo iyaguna mataqaana si fiican dadka u soo dhaweeyay. hadday beer lahaayeen iyo wixii ay biyo lahaayeenba wixii ay u qaban kareen oo qabtay. marka hore ilaahay baa mahad leh. ilaahay baan baryaynaa ummadani inuu nin walba halkiisii ku dhargiyo oo ku celiyo. ilaahay intii soo hayaantayna halkeedii roob ha uga shubo. ilaahay intii taalla ee dulqaadka yeelatay soo dhaweysana ilaahay abaalgudkoodii iyagana roob uga dhigo. ilaahay madar khayr qaba inoo keeno. ilaahay gacantiisa bayna deeqday ilaahu gacantaada nagu dhargi. ilaahu na soo kala furo ummadano nin walba meeshiisa ilaahu ku dhargiyo roob ku sii khayr qaba. ilaahay baan ka baryaynaa ummadana waxaan ku waaninaynaa ku wacyigelinaynaa inay ilaahay baryaan. gacan bilaada waxba ma deeqdo. hay'adaan doonaynaa iyo maxay baan doonaynaa macquul maaha. ilaahay waa inaan barino.
gacanta ilaahay uunbaa ina dhergin karta waa inaan dembi dhaaf dalbanno ilaahayna markaas samada inoo furi doonaa halkan maanta aan joognaay waxa weeye dila jaarkeeda xooga duudweyne dhinaca Carragaranuug qaybtaasaan maanta siinaynaa dad hore waxoogaa diga jabsado waxoogaa yaalay iyo qayb kale oo cusub labadaba way leeyihiin annagoo gudidii taakulaynta abaaraha ee gobolka Awdal qayb ka mid ah qaybina ay hawl kale oo arrinta ku saabsan inay ku jirto ayaan halkan ka bixinaynaa waxyaalo kala duwan oo sida caanaha sida timirta dhar iyo bustayaal wax aynkaas oo ummadda qaarkeedna ay ku tabaruceen qaarna gudida taakulaynta abaaraha ee Awdal iyo Selel ay iyaguna maxay ahaydeen soo iibiyeen ayaanu halkan ku siinaynaa dad ilaa 60 qoys weeyaan imika waxa aan siinay haddana waxaan u sii jeednaa dhinaca galbeedka dila oo dhinacaas ayaanu sii jeednaa haddii alla yidhaahdo waa bilowgii ugu horreeyey galbeed baanu soconaynaa dadka in badan saaka iyo shalay iyo daraad ilaa 5 maalmood ay imanayeen halkaasaanu ka bilowno maalintii horena ku ekayn insha Allah ilaahay ummadda waxaanu baryaynaa inuu ilaahay roob u keeno intii degmadan dilana aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta wanaagsan ay sameeyeen waxaana leenahay si fiican oo soo dhaweeyaan ummadaas ilaahay yaana ma garanaysa qadar alle ku yimaadeen baraka iyo abaar baa keentay taasana sidoo kale iyaguna dadkii deeqda loo qaybiyay halkaasi si weyn uga mahad celiyay iyagoo guud ahaanba ka warramay sida deegaanadaasi loogu soo dhaweeyay iyo dhulkii ay ka soo hayaameen ee abaarta ba'an ee bariga ku dhufatay ay ka soo barakicisay iyo haatan waxyaabaha ugu daran ee ay u baahan yihiin waxa ayna yiraahdeen waxaanu nahay dadka ka yimi bari meesha la yiraahdo dad maneer iyo tuuyo ayaanu ka soo guuray waxaanu kaga soo guuray wada bilaahay qiyaas karo fara badan xoolahan wadnaana waxa weeyaan xoolo aan saaka cuntam lahayn badan oo wax laga cuno lahayn waxaan u sheegayaa dawladda Soomaaliland iyo hay'adaha wax taakuleeya iyo dadka islaamka dadka inay soo taakuleeyaan Maxamed annagoo dadka soo guuray ee ka soo guuray gobolka Oodweyne oo tog dheer ka soo guuray oo dad abaaraysan kana soo guuray wadanfa kuna soo guuray ummad ciida ka badan ku yimi in badanna soo saareen gaariga xooluna aanay lahayn wax imaka isbixinaya waxa lagu soo raray waa wax amaaha waa wax aan la hidin karin dadkana soo qaaday ee meesha ku keenay waa dad noo tagaabeeyay uun marka dadka aan u nimina waa dad si fiican noo soo dhaweeyay ilaahay mahadiya ka gaadhay ayagana waxaan u leenahay ilaahay khayr ha siiyo dadka khayrka noo taakuleeyay oo noo fidiyay biyo iyo baad bustayaalan huwano baca aanu dhisano ee soo dhaweeyay beerahan dajiyay waan u mahad celinayna alxamdulilaahi rabbil caalamiin allaha barakeeyaanu leenahay arsaaqad khayr qabta oo ballaaran oo lagu kala dugo oo nin waliba halkiisa ku dhergo ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay kaasaanu ka rajaynaynaa nin waliba halku jecel yahay ilaahay ku nimceeyaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay saasaanu ka rajaynaynaa maalka aanu wadnaa waa mid fara badan waa mid afadhacaya waa mid keyntii lagu sii daayay ka batay waa mid aanu ku xiiqnay waa mid carrigii ilaahay oo u ballaariyay ee xorta ahaa ka yimi oo abaari ka keentay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu carradii ballaarnayd ee xorta ahayd ee aan soo ceris lahayn u mariyo nimco ballaaran oo ilaahayna abaarta ka bixiyo waa xoolihii dalka ka dhoofayay ee adduunka iyo dawladuhu ku dhisnaayeen ee ictimaadka noo furay weeye xoolaha aan wadna waana xoolo aad u fara badan marka Allah waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay nagu celiyo dhulkii aanu ka nimi ummadda aan u nimina khayr iyo ilaahay naga kulmiyay in makana nabadgelyo khayr qabtaan ugu nimi kulanti khayr qabtay oo noo fidiyay biyo iyo baad bustayaalan huwano baca aanu dhisano ee soo dhaweeyay beerahan dajiyay waan u mahad celinayna alxamdulilaahi rabbil caalamiin allaha barakeeyaan waxaan u sheegayaa dawladda Soomaaliland iyo hay'adaha wax taakuleeya iyo dadka islaamka dadka inay soo taakuleeyaan isku soo wada duuba taakulaynta abaaraha ayaa ilaa imika waxaan laga dhaxarkayn waxaan hayn bariga inta ku hadhay ee ku dhibaataysan dadka deegaanada biyaha iyo baad kala soo gaadhay ee dhaxanta iyo gaajadu ay haatan haystaan gacantii dawladda oo inta badan dadkaasi ay ku sheegayaan inayna xubno dawladda ka socday marnaba ayna soo booqan ayna aragna dhibta haysata inta badanna ay sheegayaan gacantii dawladdu inay ka maqan tahay